magacaygu waa Cali Cabdi Xaaji Aadan waxaan ku noolay magaalada Hargeysa waxaan ahay xifladle farsamo gacmeed ka shaqeeya wallahi waxaan bilaabay xifladan waxaan bilaabay 12 sano ka hor meelaha cid ugu dhiirigelisay oo kalimeed jirin hay'ad marka dad qaadanaysay in farsamada gacanta waxa barto ayaan ku biiray marka taasaan adigu systemka hay'adda aan ku galay sidii baan ku bartay iyadoo shahaadadii wixiina la isiin baan adigu farsamadii markaan bartay anigu ka baxay masaan adigu suuqa galay sidii baan ku shaqeeyaa sidii baan wali alaana ku shaqeeyaa marka waxaan ahaa nin yar oo iska dhalinyaro oo iska yar baan ahaa imkana waxaan haydee qof weyn baan noqday marka farsamo yaqaan oo hay'atay aabba baan noqday marka noloshayda aad iyo aad waxaan noqday qof aniguna qof wax istaraan noqday cid kalena wax taraan noqday marka aabbana oo reerkiisa iyo adigu caruurtiisa wixiisa ka adag والله عقبات كلا horta ma lahayn laakiin waxana waa iska biro oo marar bay ku sareysaa waxa jira ilxamadu qiiq bay leedahay qiiqaasi marka qaar bidha ka gelaya oo indho ku xanuunayaan marka taana iyada hadii laga taxadiro la iska ilaaliyo iyadu waa iska caadi oo la iska ilaalin karaa marka caqabadeeda horta waa inta biraha ku jaraya waxyaabaha sunbay la caqabada leh إن شاء الله waxaan doonayaa mustaqbalka in aan ugu farsamayda sii wato oo anigu aan meherad furto oo anigu halka ka sii wada farsamada dadkana wax sii baro anna meherada furto ka sii faa'iidan doonaa insha Allah dhalinyarada horta waxa oran lahaa wadanka horta shaqo la'aan ma jirto shaqo waleeyo farsamada gacanta ugu muhiimsan waxyaabaha lagu shaqeeyo waxa jira wadamo shisheeye dad inooga yimaado farsamo yaqaano shirkadaha dhismaha kale soo qaataan oo farsamada gacanta kuwaasiba wadamo shisheeye baahiba loo doontaa marka inay dadku wax bartaan oo farsamada gacanta ku soo biraano